marka laga soo tago dadka u dhashay dalalka todobada ah ee loo diiday inay galaan dalkaasi Mareykanka walwalka ugu xoogan waxa ku dhashay dadka qaxootiga ay isaga cararaya dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira dalalkooda waxaana ku jira qaxooti badan oo Soomaali ah kuwa ku nool dalka Koonfur Afrika magaalooyinkiisa kala duwan. Sahra Sulub Canshuur waa hooyo Soomaaliyeed oo haysata 4 carruur ah iyada iyo qoyskeeda oo ku nool dalka Koonfur Afrika muddo 18 sano ah. wuxuu qorshoodu ahaa inay u guuraan dalka Mareykanka 30 bisha Janaayo aynu soo dhaafnay, laakiin hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa 28 bishaasi ku wargelisay in socdaalkoodii ay ku tagi lahaayeen dalka Mareykanka la joojiyay. hadda waxaan nahay dadkii falayga raaci lahaa 30 bisha annagii oo sugayna inaan baxno oo gurigayga aan gatay oo ilmihii iskuulkii transfer ka aan u qaatay oo maxay ahayd everything aan dhamaystay oo baagayga aan baagaraystay oo u diyaarsanahay inaan falay gareeyo ayaa waxa soo wacay IOMT nin kamida oo igu yiri Saturday soo wacay oo igu yiri you fly is cancel. Sahra Sulub waxay hadda qaxootiga adduunka UNHCR iska diiwaan gelisay sanadii 2009 kadibna waxay dibadejin ka heshay dalkaasi Mareykanka oo nasiib wanaag ay kaga horeeyeen hooyadeed iyo aabaheed waxayna rajaynaysay in muddo 20 sano kadib ay la midowdo, laakiin hadalka madaxweyne Trump uu dalkiisa kaga mamnuucay dadka qaxootiga ah in muddada 4 bilood ay soo socotay ay soo galaan wuxuu ku noqday naxdin aysan filanayn oo kala dhantaashay farxadii ay u haysay la kulanka familkeeda. waxaan galay UN 2009 waxaan filayaa inuu isaguna ka noqon doono sida ugu dhaqsaa badan iyadoo la gaadhinba 120 ka bari ayaan aadna waan uga codsanayaa inuu ka noqdo because hadda waxaan haysanaba ma jiro macnaheedu inuu nagu tigsadana ma aha. aniga hooyada yaabay halkaas jiraan iyo reerkanaga oo dhan hooyada oo aan arag dhowr 20 sano iminka waa hooylaan waxayna degan tahay hotel ay leeyihiin ganacsato Soomaali oo ku yaala xaafadda Mayfe oo ay Soomaalidu degan tahay. Caruurteeda ay ka saartay iskuulka ay dhiganayeen taana ay u dheertahay in wax sharci aysan ku lahayn dalka Koonfur Afrika. waxaan soo diyaariyay inaan baxo marka gurigii waan fasaxay guriga anigu ma lahayn ranti buu ahaa ninkii lahaa ayaa kireystay aniguna alaabteedii waan iibsaday markay sidaa noqotay 2 week muddo 2 week gabadh oo family friend aan nahay baan gurigeeda ku noolaa. ka bacdina markii Saturday la soo wacay ee la yiri de hoob malihido waad kansalan tahay Soomaali odayaalka Soomaalida ay soo kaxeeyay community-ga waxay keeneen hotelkan hadda aan ku sugnaay muddo 2 habeen ay iga bixiyeen hotelkii oo ah halkii habeenba